السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهنتين بقى داوديال ميل والبو الدنيا ذا كتشوكتان حلي والبا يا مركزي جور والبو إذن تهاي وحان إذن لنا هاي كلنتي وعن أو ونكسن هذا بدا ودي هلك أدنى جلس سعتان وجنالك فاتح اتش دي هدي أي تهاي مركي كوجوري سي أي أتصوب وقتو جنال كنا أفضل سبسكرايب صار كدب نفرو جنبالك سي أدوه شو واربعينو ديريا shirkadda soo saarta dayax-gacmeedyada iyo gantaalada ee SpaceX oo shalay hawada u dirtay dayax-gacmeedkeedii ugu horeeyay shirkaddaasi uu leeyahay Elon Musk oo bilyaneer Mareykan ah ayaa sabtidii shalay hawada sare u dirtay laba cirbixiyeen oo ka tirsan hay'adda arrimaha hawada Mareykanka ee NASA howlgalkaas oo noqday kii ugu horeeyay taariikhda ee ay shirkad gaar loo leeyahay dad uga dirto meeraha Mars dayax-gacmeedka SpaceX Falcon 9 oo shalay abaaro 3:22 daqiiqo ee galabnimo xilliga Mareykanka laga ganay xarunta dayax-gacmeedyada ee Kennedy Space Center ee gobolka Florida ayaa waxaa saarnaa cirbixinada kala ah Drake Harley iyo Bob Behnken howlgalkan ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee laga diro gudaha Mareykanka muddo 9 sano ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka mid ahaa dadkii daawanayay markii hawada sare loo ganayay gantaalka Tuuriya ee dayax-gacmeedka SpaceX Falcon 9 ayaa sheegay in awoodda iyo tiknoolajiyadda dayax-gacmeedkan uusan caadi ahayn waxa kale oo uu sheegay diritaanka dayax-gacmeedkan uu wadada u xaaray tartan ganacsi ee dhanka hawada sare ee mustaqbalka wuxuu mar kale ku celceliyay ballanqaadkiisii ahaa in cirbixiyeenada Mareykanku ay mar kale ku laaban doonaan dayaxa iyo meeraha Mars marka la gaaro sanada 2024 intan barnaamijkan barnaamij lamid ah aan dib idin kala kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadino